laba qof ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii nin debley ah oo ku hubaysnaa mindi aad u af badani uu weerar ku soo qaaday dad rayid ah iyo weliba saldhigga ciidamada booliska ee Faarax Cumar ee ku yaala xaafadda Hodan waxaana ugu horeynba ninkani gacan ku dhiglaha oo weerarkiisani ku soo qareejiyay qof haweenaya oo la sheegay inay ka tirsan tahay guriga uu ku sugnaa isagoo mid kalena ku soo dhaawacay waxaana isla subaxnimadii hore ee saaka ninkan uu si kadiisa weerar ugu soo qaaday saldhigga Faarax Cumar halkaasi oo qudha kaga jaray hal askari laba kalena ku dhaawacmay isagoo ruuxani gacan ku dhiglaha uu muddo kooban gacanta ku hayay saldhiggaasi Faarax Cumar taasi oo aakhirkiina keentay in mid ka mid ah dadka rayidka ee ka agdhawaa saldhigga booliska oo dhaawac rasaas u geysto gacan ku dhiglaha isla markaasna ay u suurta gasho in ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ay si buuxda gacanta ugu soo dhigaan waxaana isla maantaba la gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco dhaawacyadii ka dhashay falkani iyadoo sidoo kale sida aad muuqaalkani ku aragtaanba uu yahay gacan ku dhiglaha lagu magacaabo Cabdiqaadir Gacmay oo isagoo dhaawiciisa haatan lagu dabiibayo cisbitaalka guud ee magaalada Burco isagoo dhanka kalena ku xabisan cisbitaalkaasi taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer Salmaan Ducaale Ubaxla Dhagacade oo maanta uu waramayay warbaahinta faahfaahinna ka bixinaya falkani ayaa sheegay in ciidamada boolisku ay gacan ku dhiglihii haatan gacanta ku hayaan isla markaasna ay baaritaan ku hayaan waxaanu taliyuhu Xuseen ruuxani 3 maalmood ka hor uu ka yimi gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya taasoo ilaa haatan baaritaan lagu hayo saaka waxa shantii barkii subaxnimo xaafadda Hodan ka dhacday gacan ku dhigle loo oran jiray magaciisa Cabdiqaadir Cabdi Gacmay wuxuu toore ku dilay marxuumada loo oran jiray Gaasire Maxamed Maxamuud waxa uu ku dilay toore kadib eedaysanahaas waxa uu soo wararay saldhigga booliska Faarax Cumar waxa uu isagoo tooreedii uu ku soo dilay marxuumada ku hubaysan waxa uu qori tooradii kaga furtay qoriga askarigii sentariga u taagnaa oo loo oran jiray Ciise Xasan Aadan kadibna qorigaasi wuxuu gacan ku dhiglahaas ku dilay waxa askari kale oo la yiraahdo Maxamed Cismaan Maxamed ayuu eedaysanahaasi ku dhuftay qorigii waa askari kaga dhuftay xabad ku dhuftay dabeetana askarigaasi goobtii ayuu ku geeriyooday eedaysanaha waxa lagu qabtay goobtii isagoo wali dagaalamaya eedaysanaha waxa soo gaaray dhaawac fudud sababta uu dadka u laayay iyo sababta saldhigga booliska u soo wararay wali ma aanan garan laakiin baaristoodu way socotaa isagana dhakhtarka ayaa lagu daweynayaa eedaysanaha wali waxa la cadeynaya ama xog lagu booliisku ku soo helay inuu muddo 3 casho ku sugan yahay gobolka Togdheer Burco kana yimid gobolada dhexe eedaysanahaas uu ka yimid gobolada dhexe sababta uu dadka u laayay iyo sababta uu ilaa hadda dilka inta lagu geystay iyo dhaawaca labada askari wali booliisku ma uu helin sababta uu laayay dadka ay dhaawac u geystay laakiin baarista ayaan ku jirnaa gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa gacan ku dhiglu sababta dambiga u galay tan iyo waqtiga ay soo shaabaxday arintani ka dhacday saaka saldhigga Faarax Cumar ee magaalada Burco ayaa bulshada ay si weyn isku weydiinayaan wararka la xiriira dilkani waxaana maanta si rasmi ah loogu aasay magaalada Burco dadkii falkani ku geeriyooday oo laba ahaa iyadoo ciidamada dambi baaristuna ay haatan si weyn ugu mashquulsan yihiin inay natiijo ka soo saaraan sababta ruuxani ku kaliftay inuu dadkani laayo waxaana dhacdadani maanta ka dhacday saldhigga Faarax Cumar ay ahayd mid si weyn u cabsi gelisay bulshada isla markaasna khalkhal weyn ku abuurtay bulshadii xaafadaasi ku dhaqnayd muddadii koobneed ee weerarkani ka socday saldhiggaasi